السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله waad aragtay maraykanka waxaa ka socda heat wave-kan ayaa kuleylku meelaha inta badan 90 iyo ka bad ayuu temperature-ku gaaraya. Kuleylka saasuu aad dareemaysin iyo humidity oo sii kacsan soo hawadii biyiba ku badan. dadka dhibaatada inta badan ku dhacaysa waa dadka waayeelka, dadka uurka qaba, dadka cudurro caafimaadkooda oo dhibaato haysata or chronic diseases la yiraahdo. way muhiim haddaad u baahneed maanta inaad u baxdo weekend-kan iyo weekend soo socda banaanka socodkaaga yare waxaad u baahan tahay un muhiim u bax haddaad meel aad haysan oo qaboojisa oo air condition aad haysan gurigaaga waxaad deedaa meelaha community centerska oo waxaad u tegi kartaa meelaha library oo kale oo ku caawinaysa inaad qaboojida aad heshid. muhiim dadka aad ogtahay u dhibaataysan xasuuso ka wardoon sidaad tihiin hadday caawimo baahan yihiin xasuusinaad biyo badan cabtidna haddaad banaanka qas u baahan tahayna waxaa leedahay wax electrolytes kasii dabadar inaad biyahana sii badisid. and kuleylku dee wax uu aan summer weeyaan waan ognahay waa kuleyl laakiin kala noocan oo kale aad arkaysaa waddankoo dhan ayay dhibaatada haysataa laakiin inta badan midwestka so waad arkaysaa Minnesota, Illinois, Indiana, Ohio, Michigan waxaasoo dhan bay hadda Wisconsin dhibaatadaasi wayna haysataa. so fadlan markaad maqlishid weatherka sidaas xoog u kulul yahay dadka waxaa ku dhici karaa cuduro, waxaa ku dhici karaa heat stroke, cuduriyee noloshooda marka horeba ayagaba siday u dadaalayeen oo dhibayay ayaa kasii dhibaatada usii badan kartaa. so islaaliya insha allah kulligood dhan caafimaad baan ii rajaynayaa. halkan dadka u sheeg u faafaafi dadkaaga u sheeg videogana ka gaarsii inay ayguna daawadaan. mahadsanid, jazaak allah khair. dr hodan wax kasta su-aal kale u baahantiin caafimaadka hadday ku tahay dumarka caafimaadka wellness iyo sidan oo kale oo public service announcement ay tahay. mahadsanid. halkan waad nagala xiriiri kartaa follow share. thank you.